Manchester United ayaa ahmiyadeeda ugu weyn ee suuqa kala iibsiga xagaagan ka dhigatay weeraryahan dhammaan ciyaaryahanada ee waaweyn ee qaaradda Yurub ka dheela ayaa United lala xiriirinayaa, laakiin labada magac ee aadka ugu dhow ee la aaminsan yahay inay mid ka mid ah United lasoo wareegi doonto waa Victor Osimhen iyo Harry Kane. Haddaba labadan ciyaaryahan midkee ku habboon United kay tahay inay xoogga saarto, keese ka faa'iidi doona ama kusoo bixi doona taktikada iyo qaabka uu u dheelo macallin Erik ten Hag. Intaana labadan nin iyo isbarbardhigooda fiirin, marka hore bal aan fiirino waxa ay soo bandhigeen sanadkan iyo waxqabadkooda. Haddaan ku hormarno Harry Kane runtii sanadkan waxaa la dhihi karaa bandhigiisu caadi maahan haddii aysan ahaan lahayn in uu mucjisada Erling Haaland horyaalka Premier League ka ciyaarayo. Waxaa la dhihi karaa sanadkan si fudud ayuu ugu guuleysan lahaa gool dhalinta horyaalka Premier League. 22 gool ayuu dhaliyay 29 kulan oo u dheelay Tottenham xilli ciyaareedka Premier League, isagoo sidoo kale 2 gool ka caawiyay saaxiibadiisa. Harry Kane sanadkan inkastoo sanad walba ahaa ciyaaryahan uu tirsanaa karo oo Premier League sanadihii dambe ku guuleysanayay gool dhalinta, haddana sanadkan bandhigiisu inaba caadi maahayn. Kane waa mid ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa ee Premier League soo mara, iyadoo la aaminsan yahay hadduu sanadaha soo socdo uu ka ciyaaro Premier League inuu jebin doono ama uu noqon doono ciyaaryahanka ebed ugu goolasho badnaa Premier League. Dhanka kale haddaan fiirino Victor Osimhen oo ah laacibkan u dhashay waddanka Nigeria una dheela kooxda Napoli, bandhigiisu isaguna inaba caadi ahayn ayaa la dhihi karaa sanadkan. Haddaan fiirino waxqabadkiisa horyaalka Serie A-da, wuxuu dhaliyay 21 gool 24 kulan oo dheelay horyaalka. Gool dhalintiisu caadi maaha Victor Osimhen, bandhigiisuna waxaa la dhihi karaa waa mid qabtay indhaha kooxaha waaweyn ee ka dheela qaaradda Yurub. Victor Osimhen wuxuu Napoli ka caawinayaa inay ku guuleysato horyaalkeedii ugu horreeyay muddo dheer kadib. Sidaas la mid ah wuxuu kooxdiisa keenay quarter-finalka Champions League iyagoo ah mid ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo inay ku guuleystaan Champions League sanadkan. Inkastoo labadan nin ay yihiin laba weeraryahan oo bandhigan caadi ahayn soo bandhiga sanadkan, isla markaasna mid walba oo goolal badan ka dhaliyay horyaalada Yurub, haddana waa laba nin oo markii istaal ahaan la fiiriyo si aad u kala duwan. Haddii aan kala duwanaanshaha labadan nin aan wax yar ka hadalno, Victor Osimhen waa nin runtii la dhihi karo markii striker ahaan laga hadlayo striker number 9 old school ah ama classic number 9 waxa loo yaqaano. Osimhen waa nin waqtigiisa inta badan geliya inuu xerada ganaaxa joogo, inta badanna kama qayb qaato soo dhisidda kubadda iyo inuu kooxda la dheelo. Taas beddelkeeda wuxuu isku mashquuliyaa inuu difaacyada labada CBA oo mashquuliyo, isla markaasna uu fursado ka abuuro gadaashooda. Osimhen waa nin madaxa iyo aerial duelskiisu aad u fiican yahay, kubadaha madaxa aad ugu fiican. Wuxuu gool ku dhaliyaa madaxa isagoo markaas ka faa'iideysanaya koroshaska iyo baasaska ay saaxiibadiisa garbaha ka dheelay soo dhigaan. Dhanka kale Harry Kane haddaan fiirino, waa nin Osimhen aad uga duwan, waa nin jecel inuu kubadda soo dhisideeda ka qayb qaato, waa nin hal abuurkiisu aad u fiican yahay, laguna tilmaami karo mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu fiican dhanka hal abuur ahaanta marka laga fiirsho qaaradda Yurub. Inkastoo shaqadiisu aysan ahayn inuu wax abuuro isla markaasna uu kubadda soo dhisideeda ka qayb qaato oo gool dhalin ay shaqadiisu tahay, laakiin Harry Kane waxa uu isku helay gool dhalin iyo weliba hal abuur oo runtii ah shaqo lagu ammaani karo marka la fiirsho shaqadiisa. Haddii aan fiirino kala duwanaanshaha labadan nin anagoo adeegsanayna shaxda statiska ama xogta waxa ay labadan nin soo bandhigeen. Victor Osimhen haddaan ku hormarno, waxaan aragnaa meeshan goolasha aysan ku jirin penaltiyada iyo shuudadka uu sameeyo ciyaar walba markii lagu qiimeeyo 90 daqiiqo inuu ka fiican yahay Harry Kane, oo waxaad aragtaa in goolasha aysan ku jirin penaltiyada uu dhaliyay ay 99 rating ah haystaan marka lagu qiimeeyo ciyaaryahanada kale ee waaweyn ee strikerada ah qaaradda Yurub ka dheela, halka Harry Kane uu haysto 73. Sidaas la mid ah non penalty XG-ga marka la fiirsho ama goolasha laga filan karo aysan penaltiyada ku jirin 99 rating ayuu haystaa Osimhen, halka Harry Kane uu haysto 60 rating ah. Halkaas waxaad ka arki kartaa in Harry Kane oo Victor Osimhen oo Harry Kane ka gool badan yahay marka penaltiyada laga reebo. Laakiin sheekada xiisaha leh waxay tahay markii hoos loo soo dego, waxaan meeshan aragnaa in Harry Kane oo pass attemptkiisa ama baasaska isku daya ay wax badan ka fiican yihiin Victor Osimhen. Sidaas la mid ah baasaska oo dhameystiro, sidaas la mid ah progressive passka marka la yiraahdo ama baasaska hor u socodka ah oo kubadda soo dhisideeda looga qayb qaato, ama baasaska inta uusan gool imaan ka horeeya oo kubadda lagu soo dhiso, in Harry Kane oo 95 haysto halka Victor Osimhen oo haysto kaliya 11 rating ah. Taasoo runtii ah farqi aad u weyn.
sidaas la mid ah haddii hoos soo degno waxaan aragnaa touches hadda penalty meesha ay ku qoran tahay oo ah taabashooyinka oo xerada ganaaxa ku sameeyey Victor Osimhen inuu 96 haysto halka Harry Kane isaguna uu maaragtay aad ugu hooseeyo halkaas taas waxay ku tusaysaa in labadan nin kala duwanaanshaha ay sheegayo oo halkan ka muuqdo oo nina uu yahay nina xerada ku mashquulsan oo maaragtay in kubadaha xerada soo gala inuu gool u bedelo ku mashquulsan nina uu yahay in kubadda soo dhisideeda iyo inuu kooxda la ciyaaro waqti geliya mar kale haddaan xogta baasaska ee labadan ciyaaryahan fiirino waxaan arki karnaa isbedel ama kala duwanaansho aad u weyn ee labadan nin u dhexeeya waxaana halkan mar kale ka muuqata isbedelkan idin sheegayo sida halkan ka aragno halkan waa statiska baasaska xaggooda ah ama xogta laga aruuriyey ee xagga baasaska ah labadan nin sida halkan ka muuqata Victor Osimhen markii baasaska xaggooda la yiraahdo aad ayuu u liitaa markii laga soo tago pass completion oo ah baasaska oo dhammaystiray oo rating fiican ka haysto taasoo ah maaragtay aan ahayn wax aad u fiican maxaa yeelay qofkii baasas badan sameeya baasas badan ma dhammaystiro laakiin qofkii baasas yar sameeya baasas badan ayuu dhammaystiraa percentage ahaan marka laga hadlayo Harry Kane isaga bad waxaan aragnaa inuu wax badan uu ka fiican yahay Victor Osimhen marka kubad soo dhisida la yiraahdo ama kooxda in kubadda kala soo qayb qaato waxaan halkan aragnaa in baasaska oo xerada ganaax xaggeeda u baasay baasaska oo maaragtay uu kaga soo qayb qaatay soo dhisida XG-giisa iyo maaragtay caawintiisu ay aad uga fiican yihiin Victor Osimhen marka lagu qiimeeyo taas macnaheedu maahan in Harry Kane uu yahay striker ka fiican Victor Osimhen balse waa laba nin oo style ahaan kala duwan waana muhiimadda aan farqigan kugu sheegay haddaba midkii ku habboon Manchester United keesa kusoo baxaya Erik ten Hag iyo shaxda u dheelo Erik ten Hag waxa weeryahankiisa ka rabaa 3 arrimood oo waaweyn sida aan ka aragnay sanadkan sida uu u adeegsaday Vic Berghaus iyo ninka la yiraahdo Anthony Martial oo isagu horyaalkan inta badan ba aan ciyaarin arrimaha ugu waaweyn ee Erik ten Hag uu ka rabo weeryahankiisa waxaa kamid ah inuu uu leeyahay dhamaystir ama awood uu kubadda ku dhamaystiri karo taasoo ah arrinta ugu weyn ee striker walba laga doonayo arrinta labaad ee Erik ten Hag uu weeryahankiisa ka rabo waa inuu leeyahay pressing ability ama awood uu kubadda ku raacdo marka kooxdiisu isu kubaddan haysan isla markaasna uu kooxdiisa ka caawin karo inay kubadda mar kale kusoo guulaysato si degdeg ah isagoo markaas pressingkiisa ama xoog ku saaraya labada difaac kana ilaalinaya iyo goalkeeperka inay kubadda isku baasbaastaan arrinta saddexaad ee Erik ten Hag uu ka rabo weeryahankiisa waxaa la dhihi karaa waa inuu leeyahay awood uu kaga soo qayb qaato kubadda soo dhisideeda isla markaasna uu kooxda inteeda kale la ciyaari karo isagoo markaas kooxda ka caawinaya inay kubadda soo dhisaan ciyaarada saaxiibadiisana fursad u abuuri karo saddexdan arrimood haddaan fiirino waxaan dhihi karnaa Harry Kane ayaa ciyaaryahanka inta badan ugu habboon inkastoo marka pressing xaggiisa laga hadlayo oo Victor Osimhen Harry Kane aad uga fiican yahay taasoo inkastoona statuskeeda aan ahayn runtii ah arrin maaragtay ee lagu amaani karo Victor Osimhen oo markii aad daawatay Napoli waxaa arkaysaa inuu sameeyo pressing aad u badan ama shaqo badan uu qabto marka kooxdiisu isu kubadda haysan inkastoo markii kooxdiisu kubadda haysato uu xerada ganaaxa joogo basoo dhisidan uusan kasoo qayb qaadan balse markii kooxdiisu kubadda haysan waxaa arki kartaa inuu yahay nin raacashiisu aad u badan tahay isla markaasna difaacyada mashquul badan iyo qalqal badan geeya sidaan ognahay Napoli waa koox pressingkeedu oo aad u fiican yahay sida qaabka ay u dheesho markii la fiirsho inta kale markii pressingkaas laga soo tago Harry Kane ayaa la dhihi karaa ciyaaryahan ku habboon Manchester United Harry Kane waa nin saa hor soo sheegnay kubadda soo dhisideeda kasoo qayb qaadan kara inta hoos soo dego kubadda ceshta jeesta ciyaarada saaxiibadiisa ee garbaha ka dheela sida xiriirka kala dhexeeya Son oo kale oo maaragtay kala dhexeey kara Rashford isla markaasna saaxiibadiisu maaragtay gool u abuuri kara sidaas la midana leh awood uu wax ku dhamaystiro game akhrintiisa iyo maaragtay gooldantiisuna aad u fiican tahay inkastoo saas tahay haddana waxaa jiro Victor Osimhen uu kaga fiican yahay Harry Kane marka la fiirsho maaragtay maalgashiga ah waqtiga dheerka ah maadaama Harry Kane uu yahay nin 30 jir ah Tottenham ay ku rabto lacag aad u fara badan waxaa la dhihi karaa dhankaas marka la fiirsho Osimhen ayaa ah ciyaaryahanka United ku habboon maadaama uu yahay nin da'yar ah lacagta lagu heli karo labadoodan ay tahay lacag aad isaga daba dhow dhankaas marka laga fiirsho waxaa la dhihi karaa Osimhen ayaa ku habboon balse qaabka United u dhasho marka la fiirinayo waxaa la dhihi karaa Harry Kane ayaa ah ciyaaryahan ku habboon inkastoo san ahayn ciyaaryahan long term project laga dhisi karo bas inkastay si walba ay tahay xilligan la joogo United sida u dhasho marka la fiirsho waxaa la dhihi karaa Harry Kane ayaa ah ciyaaryahan ku habboon maxaa yeelay Harry Kane wuxuu inta badan oo buuxinaya shuruudaha oo macallin Erik ten Hag ka rabo ten Hag sida muuqata ma rabo ciyaaryahan old school number 9 ah oo maaragtay xerada ganaaxa uu iska jooga oo kubad loo soo karooso arrinta kale ee kaalida mudan waxay tahay in ciyaaryahanada United u dheelay garbaha kaga dheelaa aysan ahayn niman haddii Victor Osimhen uu kooxda yimaado
kubad ku raadinaya isla markaasna sida uu asaga maaragtay gool u dhalin lahaa ka shaqeynaya. Sida ognahay Marcus Rashford iyo Anthony ayaa inta badan sanadkan United garbaha u dheelay, ayaguna marka caawintooda la fiirsho aad ayuu u hooseedaa oo waxaan ognahay inaysan gool badan caawin, taas beddelkeedana ay isku dayaan inay iyagu noqdaan dadka goolasha dhalinaya. Taas waxaa la dhihi karaa waxay cilad ku noqon kartaa haddii Osimhen kooxda yimaado, maxaa yeelay United waxay u baahnaa doontaa inay beddesho qaabka iyo styleka u dheesho, iyadoo markaas ka imaanaysa inay garbaha ku weerar tagto, una gudbi doonta inay weeryahan striker banaan oo target man ay yeelato. Iyadoo shaxdan la fiirinayo ama qaabka ay labadan kooxood labadan ciyaaryahan kusoo baxayaan, waxaan dhihi karnaa Harry Kane ayaa ku habboon, balse sidaas si lamid ah waxaa jira arrimo badan oo Harry Kane looga dooran lahaa Victor Osimhen. Haddaba adiga maxay kula tahay haddii aad tahay taageero Manchester United, midkee doorbidi lahayd, midkeese kula tahay inuu ku habboon yahay Manchester United ay ka faa'iidi doonto inta ugu badan?